Ladies and gentlemen, waa idin salaamay videogan waxaan eegu tusi doonaa markaasi waxa uu yahay markaasi WordPress iyo sida loo isticmaalo. Laga yaabaa markaasi inaad maqashay WordPress in website lagu dhiso, laakiin aadan ka helin markaasi macluumaad guud iyo sida WordPress u shaqeeyo waxyaabahaas oo dhan. Marka videogan waxaan arki doonaa markaasi WordPress waxa uu yahay iyo sida loo adeegsado iyo markaasi qaybaha uu ka kooban yahay iyo waxyaabaha laga baahan yahay oo dhan si aad markaasi WordPress u hesho. Soo marka muuqaalka oo dhameystiran ku soo dhawow. Soo marka koowaad waa maxay WordPress oo si gaar ah hadii aan u qeexno WordPress ka waa waxa la yahay markaasi content management system oo loo yaqaan ama loo soo gaabiyo CMS kaas oo loo adeegsan in markaas website lagu abuuro lagu customize gareeyo sidoo kale website-ka aad ku dhisto adigoon markaas wax aqoon coding aan lahayn sidoo kale website-yada markaas caalamka ama inta website ee markaas internet ku jirta 40% in ka badan ama ku dhawaad konton waxa lagu baawur gareeyay waqti xaadirkan maanta WordPress taas oo ka dhigta markaas inuu yahay CMS ama content management system ka kan ugu caansan dunida. So content management system ya kala ayaa jiro waxa kamid ah Joomla waxa kale oo kamid ah kaba soo qaad Drupal waxa kale oo kamid ah markaas Graph waxa kale oo kamid ah Magento laakiin midka ugu caansan intooda waa maxay waa WordPress. And so WordPress marka muuqaalkiisa gadaal hadda uu maano WordPress wuxuu leeyahay wax la hayo markaas login oo kaba soo qaad markii aad WordPress rabtid inaad gudaha u gasho ama qaybta backend-ga waxa uu naqaanaa anaga hadii markaas aan reero WordPress nahay dashboard so dashboard-ka markii aad rabtid inaad gasho kaliya waxa leedahay login oo website-ka magacaada ayaa waxaad gadaal ka raacinaysaa /w-admin ama /login ayaa leedahay markii aad markaas aad tagto qaybta markaas maxaa la hayo backend-giisa wuxuu ku keenay markaas qaybta dashboard-ka ayuu ku keenay markaas aad wax walba ka sameyn karto waxyaabaha aad ka sameyn karto waxa kamid ahaan waxaad abuuri kartaa aan sidoo kale edit gareyn kartaa page sida home page about page sidoo kale waxaad ka qori kartaa blog posts sidoo kale waxaad soo upload gareyn kartaa file sidoo kale backend-ga waxaad ka soo degsan kartaa themes iyo markaas waxaad ka soo degsan kartaa plugins. qaybta saddexaad markaas waxaan ku arkaynaa saan had u sheegno markaas waxaan dhahnay WordPress ka waxa qaybta dashboard ka arkaysaa themes iyo plugins soo marka u horeyso waa maxay themes waxa kala ma aha WordPress wuxuu ku siinayaa markaas themesku badan oo kala duwan themesyada sidoo kalena aan si kala hadaan u dhahno waa pre-design templates ama template waxyaabo naqshadaysan kuwaas oo go'aamin doona muuqaalka website-kaada marka waxaad helaysaa ama website-ka WordPress gudihiisa waxaad ka dhex helaysaa markaas kumanaan theme oo free ah iyo kuwa premium oo lacag ah kuwaas oo markaas lahaan markaas unique and professional look muuqaal markaas qurxan oo aad wanaagsan marka tiimamku waa qaabkaas markaas waa naqshad diyaarsan oo aad soo degsanayso aad markaas template kamid ah soo degsanayso hadana aad wax markaas ka badbedelayso website-ka marka afraad waa maxay plugins-ka sidoo kale waa sida aababka oo kale WordPress markii la joogo oo waxay wax ka qabtaan markaas shaqada website-ka ay wax ka qabtaan sida waxaad arkaysaa kaba soo qaad hadii aad rabto inaad contact page aad abuurto meel laga soo xiriiro waxa jira plugin shaqadaas iska lahan oo contact forms ku sameeynaayo qaybta SEO ga hadaa rabto inaad website-ka ka dhisto dabcan muuqaalana waa ka sameeynaa waa fiiri kartaa YouTube-kana waxa jira markaas plugin ka hadlayo marka waxa WordPress gudihiisa aad ka helaysaa markaas in ka badan 50,000 oo plugin ayaa laga heli karaa sidoo kale kuwaas oo markaas aan ahayn iyo kuwa kale ka sii badan kuwaas oo markaas mid walba shaqo gaar ah ku qabanayo soo marka WordPress waxyaabaha ugu caansan ee loo adeegsado oo coding-ka ugu duwan yahay waa themes iyo plugins kaas oo shaqo walba ku sahlayo lacala ka soo qaad hadii aad rabto inaad shaqo hebel qabato ama inaad wax dhisto kale mid ugu badan oo ah markaas page builder ama markii la dhisayo page-ka website-kaada plugin-ka loo adeegsado inta badan waa Elementor oo ina maqas laga yaabo waa page builder-rada kan ugu caansan intaas oo milyan oo qof soo degsatay marka plugins waa sidaas oo kale waa sida aabab oo kale marka shanaad customization again WordPress markaas wuxuu ku siinaa markaas customization waxa la oo dabcan inaad website-kaada hagaajiso kaasoo ku ogolaanaya inaad website-kaada markaas style-kiisa meel walba aad markaas ka hagaajiso waxaad bedeli kartaa farta waxaad bedeli kartaa color-ka layout-ka bedeli kartaa custom-yada code-ka bedeli kartaa wax walba custom code taa oo sameyn kartaa hadii aad coder tahay oo aad koodad qaar meel qaar aad ku soo dari karto lacala ka soo qaad page contact oo kale hadii aad dhisto code-kiisa oo kale adiga ayaa markaas qoranaya kadib code-ki ayaa waxaad soo gelinaysaa qaybta markaas contact-ga soo marka WordPress waxyaabo leeyahay waxa kamid ah customization mar kale ku xigta SEO friendly WordPress waxyaabaha markaas uu ku wanaagsan yahay waxa kamid ah markaas SEO wax kale ma aha waa search engine optimization dabcan muuqaalna waa ka sameynay qaybta description-ka waa dhigi doonaa hadii markaas maxaa la hayo aad website-ka Google ka raadiso
haddii markaasi aad WordPress website leedahay waxyaabaha coding kuwa kale wuxuu ugu wanaagsan yahay qaybta SEO-ga ka dhis kartaa oo kaba soo qaad anaga hadda website-keena oo Google-ha bes aan tagno WordPress ku qorno waxay u jeedaa inuu siinayo description magaca website-keeda xogag badan inuu siinayo marka WordPress waxyaabuhu leeyahay waxa kamid ah SEO soo hadaba intaas marka waa maxay waa WordPress wax uu yahay iyo markaas inta uu ka kooban yahay iyo sida loo adeegsado haddii marka aadan WordPress hore u maqlin dabcan seelata muuqaalkan waxa maleynaa inaad ku fahantay su'aasha isweydiinta badan ayaa waxay tahay marka inaan website dhisayaan rabaa sidee marka WordPress ku helayaa dabcan WordPress waxa jirta laba siyaabood oo ku heli kartaa number 1 waa ina iibsataa domain and hosting muuqaalo waa ka sameeynay si loo iibsado oo website loo dhiso shirkadaha aad ka iibsato domain iyo hosting ama kuwa laga iibsado sida Bluehost, HostGator, Hostinger shirkadahaas GoDaddy shirkadahaas oo dhan markaas waxaad ka helaysaa domain iyo hosting marka iibsato qayb installation oo WordPress aad soo degsan karto oo website-kaada dhisayso qaybta labaad oo ah markaasi haddii lacala kaba soo qaad aadan markaas wax lacag aadan haysanin oo aadan rabin inaad domain iyo hosting aad iibsanin laakiin aad rabto markaas inaad WordPress markaas maxallahay aad ku practicayso oo si caadi aad u soo degsato waxa jirta markaas wax loo adeegsado lahay local dabcan muuqaalo waa ka sameynay video ku xigan waxaan isku day doonaa inaan ka soo dhigo markaas sida WordPress local ahaan loogu soo degsado koorsooyinkan sidoo kale waa ka helaysaa video aan ku sharaxay way jiraan qaybta description-ka ayaan dhigaa sida local loo soo degsado oo loo soo daab gareeyo oo boqolaal website oo kala duwan loogu dhiso isaguna marka WordPress u baahan tahay labada shay u baahan tahay koo waa inaad domain iyo hosting haysataa sad WordPress soo degsato oo lacag bixisa ama haddii kale waa inaad markaas aad WordPress local ahaan u soo degsataa soo hadda marka intaas ayaa markaas ku soo gabagabeynayna WordPress waxa uu yahay haddii aad su'aal qabto oo still aadan WordPress wax kale ka fahmin maxaa la dhahay WhatsApp-kan waad igu soo diri kartaa su'aalaha ama qaybta comment-iga waa igu reebi doontaa waxaan isku dayaa inaan ka jawaabo soo muuqaalada sidoo kale koorsooyin badan ayaa website-keena ka helaysaa iyo kuwa beed oo lacag ay u jiraan intaba haddaa u baahan tahay ila soo xiriir soo muuqaalka xiga iyo qaar badan